howlgal soo bilaabmay labadii dame ee xalay kaas oo ahaa nin ku talagalay inuu waxyeeleeyo dadka reer Puntland oo ajnabi ah oo doonayay inuu isugu daro qarax iyo hubka uu ku dagaalamo watay isaga oo ciidamadu ay toogteen qaraxii uu wadayna uu fashilmay howlgalkaas ilaa saaka aan ku soo jirnay waxaan joognaa guriga uu deganaa waxa yaala qalabkiisa aad aragtaan oo qaraxyadii bombooyinkii saabaankii iyo waxyaalaha aan la dhaafi karin oo aan rabno maanta inaan sheegno waxa kamid ah dadka wax wareejiya oo alaabaha wareejiya dareemaysan tusbaxyada iyo waxyaalihii ay wareejinayeen iyo cadarada iyo waxa la yiraahdo kaararka lagu tuugsado aad aragteen oo dadka ku tuugsadaan marka waxaan rabaa inaan baaq u diro ummadda reer Puntland runtii waxaan oran karaa maantay ajnabi khawaarij ah iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland baa dagaalamaya waxaan rabaa inaan iraahdo ummadda reer Puntland waxa idinka baahan yahay in aad guryaha dariska idinla ay gudihiina si adag aad u gashaan runtii waxaan u mahad celinayaa shacabka oo intii barnaamijka ay ka hayeen nagala qayb qaatay iyo ciidamada ammaanka oo ku dadaalay inuusan dhagartaas aysan u fulin ilaa iyo meeshiisa ugu dameysay ee qaraxyada ay fashiliyeen runtii waxaan rabaa inaan digniin u diro hay'adaha iyo dhammaan dadkani waxay ku yimaadaan ama qaxooti ama waxay ku yimaadaan ganacsi kambaniyada ay u shaqeeyaan dadka ajnabiga ah iyo haddii alla idmo dhammaan dadka ajnabiga dalkan jooga gaar ahaan magaalada Boosaaso insha Allah waxaan ka qaadi doonaa tallaabo adag qoladii xalay ninku iska qarxiyay kuwana waa ka qabanay oo rag baan ka qabanay maantay qaybna way maqan tahay waan ku raad joognaa midna waa u dhintay waad aragteen qaraxa intiisii ugu dameysay iyo howlgalka waan soo koobnay iyo guriga iyo ammaankiisii waxay deganayeen dadka waxaan rabnaa kale inaan u sheegno qof kasta oo qof ajnabi ah guri ka kireeyay oo gurigiisa uu degan yahay alla xisaabtamayna wuxuu noqon doonaa wuxuu geysto qofkaas wuxuu geystay inuu soo qayb ka noqdo sababtoo ah qof ajnabi ah oo aan wax mas'uuliyad lahayn ninkii guriga ka kireystay isaga u taala ninkii gaarigiisa ku qaadanay isaga u taala bari ka maalin waxba ka dacwoon waxa aan la aqoon adoo sitay waxaan rabaa inaan ugu baaqo ummadda reer Puntland inay difaacdaan naftooda iyo maalkooda iyo hantidooda iyo diintooda khawaarij way ku soo duushay ninka ajnabiga ah maanta halkaan isku qarxinaya waxay ka sitaan ummadani ma jirto hanti uu la wadaagahay ma jirto dad islaam ah oo la yaqaano oo boqolkiiba muslim ah weeye ma nolol kuma gaban karo noloma sheegan karo diin beena noloma sheegan karo masaajidada laguma leeyin karo culimada iyo ganacsiga